walwalkiisu wanaag isku doori xubbiga walwalkiisu wanaag isku doori markaad wehelsiisay naftayda wareertay xubbiga walwalkiisu wanaag isku doori xubbiga walwalkiisu wanaag isku doori markaad wehelsiisay naftayda wareertay madnihii ku tabaayay korkaa tidhi waykan walaacii haystay daqiiqad ku waayay wadnii ku tabaayay haystay daqiiqad ku waayay anigoo walwalaaya qalbigu wabhanaayo otaan kugu weeday adaa I walaashay wadanka gacaylehaa wareegtay dhibkii hawaana jacaylku anigoo walwalaaya qalbigu wabhanaayo otaan kugu weeday adaa I walaashay wadanka gacaylehaa wareegtay dhibkii hawaana jacaylku waa hagaag dhegeystayaal kulan wacan oo wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan sheekadii aad in badan naga wardhowreyseen waa sheekadii la magac baxday laab mid ah iyo lur jecel qaybteedii 61aad dhegeysi aboon sidii uga hortay laacawakeed runtii ka hele macandaayo runtii ka hele xabiibidaayo wadnaha habadhiiga hanaan quruxey qalbigan ku helan hanaan quruxey hanoon kugu haynin hanaan quruxey habeen maladaya hanaan quruxey wadnaha habadhiiga hanaan quruxey qalbigan ku helan hanaan quruxey hanoon kugu haynin hanaan quruxey habeen maladaya hanaan quruxey sidii hayneedha naftaad heryada jacaylku habsiisay u hayba hogaanka jacaylku habsiisay u hayba hogaan sidii hayneedha naftaad heryada jacaylku habsiisay u hayba hogaanka jacaylku habsiisay u hayba hogaan wadnaha habadhiiga hanaan quruxey qalbigan ku helan hanaan quruxey hanoon kugu haynin hanaan quruxey habeen maladaya hanaan quruxey wadnaha habadhiiga hanaan quruxey qalbigan ku helan hanaan quruxey hanoon kugu haynin hanaan quruxey habeen maladaya hanaan quruxey qaybtan 61aad ee sheekada waxay nooga bilaaban doontaa isla markaana aan ugu magac daranay hawaawiridii baaricadii ku kaliyeysigii asaga baaricada oriyadii dhexdeedii farxad ku tamashlaynaya ayaa mar qora naftiisii ku soo noqotay balse hadduu hibiq soo yidhi waatuu ku indha qaaday asaga iyo sariirtiisii oo dhanba dhinac isku rogaya markaabuu maaxasheer ku qotomiyey riyadii uu ku jiray waxaanuu iskula hadaaqay asagoo aad moodo qof iminkaba hurda kasoo hafyiri ويليد حما أمين قنصو جديدة ويليد حما أمين قنصو جديدة إلى بلسا قلبي جيجا هنكيجا كومي لن غنسيدا عرفتي ذا وموقب أيوه عرفتي ذا وموقب أدماني لا بني ليدا أدماني لا بني ليدا أدماني لا أيوه أدماني لا بني ليدا أدماني لا بني ليدا أدماني لا بني ليدا أدمان برحي لا بني ليدا
wiilkii baari ahaa oo ismoodin inuu hadlaya ayaa eedadiisii hadafbaarta ahayd ku soo toostay hadaaqtankiisii waxayna laabtiis ka tiri eeyaa heenanku miyuu waashay muxuu la hadlayaa inta dhabtay ku fadhiiday ka soo toostay ayay baari oo hadalkiisii sii wata iridku gargaraacday inuu xoogaa ah baari jawaab ma siin eedadiisa wuxuuna sii watay isla hadalkiisii hayeeshee hadaf baarto ayaa iridka si xoog leh u gargaraacday markaabuu dareemay in shaqar iridka xaggiisa uu maqlo ayuu u soo dhaqaaqay dhankii iridka isagoo la moodo ruux sarqaansan ayuu albaabkii ka furay eedadiisii magacaygu waa Torbaca Boqol Baalweyn waxaan ku faraxsanahay idaacadda radio Hirsamo hirgelinteeda iyo helisteeda waxaan leeyahay idaacadda Hirsamo way horumartay waxay gaadhay horumar aanan gaarin warbaahin FM ku shaqeysay warbaahin SOL laga dhageystay intaba marka idaacaddan way horumartay barteeda YouTube kana in badan waan ku taxanahay waxaan ka dhageystaa barnaamijyada ay soo saaraan wariyaasha ka shaqeeya idaacadda waxaan leeyahay marka guul iyo gobonimo bahda radio Hirsamo aan leeyahay weligeena hankeena ka gungaara waa hagaag dhegeystayaal waxaa halkaa inooga qaybtii 16aad ee sheekadii la magac baxday laab mid ah iyo lug jecel lana socona qaybaha xiga ee sheekada waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo Hirsamo media oo idin leh dhegeysi wacan waxay iga qaatay ilada waxa kiida wareentay xisayga